بسم الله السلام عليكم وإن سلام أصحاب تميل والباجوكين كسو دبادة channel كان بشركوكن and healthy man I hope إن عافماد قبتين عافماد إدين رجين أصحاب تميل والباجوكين سو دبادة ما أنت محاربة إنا إدين الشير كريو and محل هاي how to سيدا نضيف لهاد يعني host أو private bath كاغا like oo iskaga ilaalin lahayd infectionka bacteriada iyo waxaas iyo waxyaalaha u fiican oo dabiici ah maxaa la dhahaye waxaa ka hadlaynaa maanta topicaas oo cleaning vagina saa u nadiifin lahayd private bathkaaga ama qaybta hoose saa u naqaano iyo sida u tight uga dhigi lahayd oo kuugu adkaanayo oona kuugu noqonayo maasha allah alaabkaala iska arag maxaa sameynaynaa asxaabta asin dabiici yaa rabaa inaa subiyo like meeshaan maxaa ku haystaa wacarkoosiina like aloe vera ku haystaa aloe vera gel waa kana asoo geed asoo redmint oo diyaar waa kana oo like asoo gadanaysid haddaa kan heleynin ani hadda kan waa hayaa kana waa haystaa waxaa kaloo haysanaa baking soda cleaning oo vaginaga waxyaalo badana lagu clean gareeyaa qaabo badana loo nadiifiyaa marka maxaa rabaa inaan sameeyo si dabiici ah meesha maxaa ku haysanaa cotton ku haysanaa intana maxaa ku haystaa biyo kuleel saa ani u isticmaalo oo markaa bilaabayna aan uga faa'iidaan rabaa idinkana inaan idinka faa'iideeyo hadda inta aragtiin maxaa ku jiro biyo ku jiro iyo maxaa ku jiro baking soda iyo white vinegar ku jiro hadda white vinegar ingredient-keena ma ku jiro koos ma yaalo meeshaan anyway maxaa rabaa asoo aloe vera waa isticmaalay waa iga dhamaaday asoo aloe verada ina idin tuso maanta marka asxaabta waxaa sameynaynaa oo ka bilaabeynaa aloe verada ka bilaabeynaa aloe verada marka maxaa u baahanaanay boola u baahanaanay aloe verada hadda inta dhinacyada waa ka jaray waxaa sameynaysaa aloe verada waxaa kala baxaynaa jeelka ka baxsanaynaa okay jeelkaa ka bixinaysaa haddaa haynin aloe verada oo heli karina tan diyaarka isticmaalaysaa tan diyaarkana waa sameyneynaa aloe verada caadi maahan asxaabta aaday u fiicanta wax kasta u fiican tahay waa cabi kartaa waa la cabaa like wejiga way ku adkeynaysaa like haddii oo cayil oo kaa dhacay oo like aad dareemaysid inuu jirkaaga luus yahay way adkeynee maxay ku adkeyn oo kale haddaa ku raabgaraysid qoorta garbaha naasyaalka kulli way ku adkeynaysaa cause tightinay haysataa aaday u fiican tahay aloe verada keligeed haddaa isticmaashid oo isku raabgaraysid aaday u fiican tahay like markaasaan ugu soo shubtid intaasaa hadda ku sameynaa maxaa haysanaa biyo kuleela haysataa biyaha kuleelka kusoo garaynaysaa waxaa la rabaa biyahan kuleelka inaad kusoo garaysid oo aad la dhigtid 20 to 15 minutes si ay uga baxdo aloe verada kan oo dhareerkeeda biyaha kuugu galo already waa ujeedin biyaha muxuu noqday aloe verada camal uu noqday jeel uu noqday asxaabta ujeedin I hope inaad si fiican u aragtiin saana ku dhaafaysaa like 20 minutes kadibna weelkaa ku isticmaalaysa ku shubanaysaa kan haddaa inta uga baxano maxaa sameynaynaa baking soda maxaa sameynaynaa kan diyaarka kan diyaarka easy waaye asxaabta asagana waa idin tusayaa inaa helo waaye waa kana marka asxaabta isla boolkii la isticmaalaynaa aloe verada kalena meeshaana ku shubtay maxaa u baahan tahay marka hal qaado wax yara u sameysan kartaa like one week ka badan ha sameysanin cause maxaa fiican wax kasta inaa oo fresh ku ahaado asagan maxaa ku darsanaysaa half biyo ku darsanaysaa then same aloe verada kulli isku mid waaye sasa u qasanaysaa then waa kay
asagana like si fiican u mix gareynaysaa kadibna weel ku shubanaysaa plastic ku shubanaysaa waxaad dhigan kartaa toiletka dhigan musqusha dhigan kartaa bathroomkaaga dhigan kartaa so wakaasa asagana saas u sameynaysaa soo labada hadda isku hal waaye hal meel ku shubanaya cause aloe vera to aloe vera way isleedahay soo ujeedin asxaabta aloe verada saas u sameynay then waxaa rabtida u isticmaali kartaa meelaha isdhehaysid inaa adkaysid dhan aa ku raab gareyn kartaa aa ku masaaj gareyn kartaa soo waa kasaa aloe verada haddana maxaa sameynaynaa baking sodaha saa u isticmaalaysid soo karaal noqda haddaa maqashiin qaylo laundrya sameynaa waxaa dhaqooyaa at the same timena waxa waa duubooyaa haddana waxaa sameynaynaa qaybta baking sodaha idin tusa asxaabta maxaa u baahan tahay hal qaado oo baking soda then haddaa haysatid white vinegar waa ku darsanaysaa labo qaado oo yar asagana then hadda hal qaado baking soda ku shubaa meesha maxaa ku daraa biyo kuleel ku daraa biyahaaga inay kuleel ahaadaan waaye waxoogaa oo like qandac inay ahaadaan soo marka intaas isku qasaysaa waa ujeedin saasa u walaaqaysaa way isdhex galayaan kadibna waxaa ku shubanaysaa weelka ugu talagashay then maxaa ku isticmaalaysaa cottonka ku isticmaalaysaa suufka saas uma marsanaysaa dhinacyada meel kasta geesaha kor hoos laakiin maxaa sameynaysaa aloe verada ilaa deep down ilaa gudaha waa isticmaali kartaa kana waxa waaye areada oo private partka aa ku isticmaalaysaa aada ku nadiifinaya infection iyo bacteria waxaas dhan ma kusoo dhawaanayaan inaa maxaa dhahay markaa caag ku shubtidna waxaa arkaysaa inuu saas u fadhiisanayo waa ruxaysaa wax dhib ma lahan ha ka cabsanin cause wixii biyo iyo waxa la isku daray waa baking soda salku fadhiisanaa marka weelka ku shubanayna insha Allah kadibna maxaa sameynaysaa markasta oo maxaa dhahay u badan habeenkii aa isticmaalaysaa subaxii habeenkii waqtiga aad jecesha isticmaalaysaa habeenkii fiican iyo subaxii laba jeer ina maalinta isticmaashid ama hal jeer waa kaasaa marka sidaas quruxda badan oo kusoo baxeen alaabteeni aloe verada maasha Allah waa la hubaa alaabtan kalena maasha Allah ayadana wax effect ma ku keenayso wax chemical ama ku jiro dabiici waaye natural waaye soo saaribtida u isticmaali kartaa maxaa helaysaa clean then maxaa loo baahan yahay inaa xiratid like cottons oo panty cotton waxyaalaha kuleylka nylonska inaa iska ilaalisid xiliyaasha especially summerka soo baakas asxaabta I hope inaa ka heli doontiin waxaa idinka codsanaya inaa like subscribe share ii samaysiin more like-na aa ii saartiin fiidiyoyaasha oona ii daawatiin aana dadkiina usii gudbisiin si uga faa'iidaan soo sidaas iyo waxaa iskaga tegaynaa insha Allah see you the next video. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.